marka waa inaan dhaqaale soo saarno dhaqaale inaan soo saarnana waxay ku xidhan tahay inaan taageerno ganacsatada Soomaaliyeed iyaguna cashuurta bixiyaan oo ogaadaan sharafkooda iyo karaamadoodu inay tahay dawladooda maanta qofka adduunka oo dhan qofka sharafkiisu waa dawladdiisa sharafkiisu say tahay lacag kasta lahow sida doonto u quruxsanow marka tagto wadan adduunka kamida waxa lagu dhahayaa dawladde ka socota dawladdaadu haday quruxsan tahay nin quruxsan baa tahay meel fiican baa lagu marsiinaya dhinacyada laga raacaya haddii dawladdaadu fool xun tahay wax lagu dhahaa kaba iska bixi xagga istaag halkan taagno waa ka cabsanayna terrorista tahay meeshaas qorraxdu kugu dhacaysa marka lacagtaadu maxay taraysaa ganacsatada Soomaaliyeed waxa leeyahay cashuurta bixiya dawladda isgroup istaaga sharafkiina waa dawladda Soomaaliya sharafkeeda haday sharfan tahay waa sharfanaanaysa haday adduunka ku qiimo liidato adna qiimo ma lihi marka ganacsatada Soomaaliyeed taasaan ku taageeray waxa kale oo runtii caqabada oo raba fursadan uga faa'iideysto ganacsatada Soomaaliyeed muddadii ay fawdada ahayd waxay goosteen baasaboorro ajnabi ah waayo saasay ku dhoofi kareen waxay goosteen baasaboorro Ethiopian Djibouti Kenyan ma American Ingiriis meeshii ay heli karayaan ayay goosteen hadda annagu waxaanu raadinaynaa dal kasta oo u tagnaa wuxuuna dhahayaa waxaan fiirinaynaa waxaad naga qaadateen ganacsatadii wuxuu fiirinayaa ninkii Soomaali ahaa laakiin ganacsatada waxay wadataa baasaboor ajnabi ah marka wadamadaas ay u xisaabayeen wuu bacay mushtariya Soomaaliya ka bacay mushtariya laakiin waa British ayay daatadaasi u xisaabtan tahay xisaabta waxay galaysaa Ingiriiska waa bacay mushtariya Soomaaliya ka bacay mushtariya Ethiopian buu wataa Ethiopia khadkiisa ay galaysaa وباع مشتريا وهو باسبور جيبوتي عن جيبوتي خدكيسay gelaysa marka sharafkii Soomaaliya ma jiro marka waxaan lahayaa wax yar baa naga qaadatay waa been wax badan aan ka qaadanay laakiin dadkayagii baa baasaboorro kala wata haddaanu nahay wasaaradda ganacsiga horta marka hore ganacsatada waxaan leenahay baasaboor Soomaaliga sharafkiisa waa soo noqday qaata markii hore duruuf baa idii geysay ma diidayno laakiin hadda baasaboor Soomaaliga sharafkiisa waa soo celinayna safaaradaha aanu dawladaha aanu saaxiibka nahay oo Turkiga ku jiro waxaan dhigaynaa liiska ganacsatada import export ee Soomaaliyeed waxaan ugu dhufanaynaa fiise multibala oo aan istaagaynin oo 3 sano 4 sano 5 sano dawladda ayaa damaanad qaadaysa ganacsadahaas marka sidaas oo kale safaaradaha kale heshiis ganacsina dhexmaro ayaanu samaynaynaa si daatada ama wax dhoofsiga wax kala iibsiga Soomaaliya u bato kuwa samayn waaya oo iyadoo accesskii jiro oo dawladdii u samaysay dhammaan tartiibaadkii u baahnaayeen bedeli waaya Soomaaliyana ka ganacsada Soomaali weligii ha ahaado waxaan u xisaabaynaa inuu British yahay ajnabi inuu yahay marka cashuuro dheeriya fuuli doona liisan iskaan bixinayno baasaboorka ku qoran iyo manifestka uu wax ku soo dejinayo wax ku dhoofinayo baasaboorka ku qoran hadduu ajnabi yahay waddankaasna baasaboor Soomaaliga lagu tagi karo cashuur dheeriyaan saaray marka ganacsatada waxaan leenahay duruuftaad ku qaadateen waa idila aqoonsan oo ma xumayn laakiin maanta baasaboor Soomaali qaata mahadsan